السلام عليكم رجب يا رئيس رجب طيب أردوغان أريد منكم زواج بنت تركيا تحب الله ورسوله. السلام عليكم يا بني تركي أريد منكم زواج بنت تركيا تحب الله ورسوله. اسمي آدم أحمد عذور المشهور الشيخ عذور. waxaan codsanayaa dowladda Turkiga shacabka waxaan ka codsanayaa iyo madaxweynaha gabar Turkiga inay guuriyaan ayaan ka dalbayaa dadka muslimiinta meel ay joogaanba alxamdulillaah dadka Soomaaliya ku hadlaan waxaan doonayaa gabadha inay doonaan alxamdulillaah waan jeclaaday laannahum ra'yi saliim macnaha ra'yi fiican bay leeyihiin khilaaf qodana uu ra'yi oo macnaha dadka maartay hay'adaha maartay iska socdama qaadada alxamdulillaah xagga maartay aqoonadoodan ay wanaagsan tahay fikirkan goormo kugu soo dhashay hadii ilaa muddo alxamdulillaah inta dhowr sano gabdhaha Turkida ah ma gabar hadda ku ballansan baa jirta oo aad doonayso in lagu doono ikaadi ma waxa doonayso ma waxa jira gabar Turki ah oo ku ballansan oo aad hore isu taqaaneen oo aad doonayso inaad guursato oo lagu doono miyaa jirta ama gabar walba Turki ah maya si guud baan weydiisanaa gabar Turki baan doonayaa oo laakiin gabar wadaad oo quraanka taqaan maartay eludiina oo ilaahay rasuulka jacayl oo wadaad yaa waxaan weydiisanaa gabadhaha Turkiga maxaa uga dooratay gabadhaha kale ee caalamka gabdhaha caalamka maartay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa dad muslima alxamdulillaah marka dhaqanka maartay Turkiga Soomaalida iyo Turkiga maartay guurkooda inaan bilaaban jecel insha Allah dawladda maxaad ku doorbiday oo aad uga tagaysaa gabadhaha kale ee muslimiinta ah ee caalamka kale ku nool caalamul islaami maya kama doorbidin laakiin alxamdulillaah dhankaas baan hadda ayaan ku bilaabaya kuwa kalena aad ku xujinaysaa miya la'alla insha Allah dawladda laakiin hadda kuwan Turkiga ay kaaga dhigan tahay insha Allah dawladda wax gooni oo aad ku dooratay ma laha miya waxaan ku doortay horta macnaha waa dad alxamdulillaah adaga oo ra'yigooda alxamdulillaah uu saliim yahay haye macnaha oo maartay yahuudi u sacab dhaw ma haye marka awlaad maartay wiilal oo maartay adaga oo maartay inay dhashaan waa jeclaan soo kama cabsanaysid in dhaqankii iyo hidaha Soomaalida aad haddu ilmahaaga ay ka tagaan hadii ay ilmo ku dhasho lacala hadii ay noqoto inaad guursato waxaan jeclahay dhaqankii hadiyaha iyo maartay diinta inay u raacaan ay marka hadii lagu guuriyo ma dheera soo dejisani ama halkaas ay ku joogi ma insha Allah marka waa tashi marka waqtigeeda la gaaro laakiin waxaad ku qorshaysan ma laha